sharciga ama siyaasadda iyo shuruucda kale ee lagu maamulayo deegaanka Soomaaliya kuwaas oo aan rabno inaan la tashiyo kala sameeyno dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira haddii Ilaahay idmo haddii aan wax yar ka bixiyo backgroundka ama taariikhda siyaasaddan iyo biilka ama shuruucda kale ee lagu maamulayo iyo sida ku bilaabatay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markay aragtay gaab weyn oo u dhaxeeyay ama ka jira deegaanka Soomaaliya oo dhibaato badan ay ka taagan tahay sida wada ogsoon tihiinba waxay go'aansatay inay bilowdo siyaasaddan sanadkan hadda aan ku jirno 2019ka xogaa waa yara aan ii sheeg aan xanuunsanahay ilaa shalay soo codkayga haddii uusan clear ahayn karaan lahaadaya siyaasaddan waxaa kale oo nagu dhaliyay kadib markii 30 sano ee lasoo dhaafay dalka soo wax sharci ah oo national uusan jirin ayadana waxay nagu khasabtay inaan shuruucdan kala sameeyno maamul goboleedyada dalka ka jira wada tashi especially sectorska gaarka ah maxaa ku dhahay sheeg dhaqaalaha Soomaaliya uu ku xiran yahay kuwaas oo u baahan shuruuc gaar ah oo environmentiga in lagu maamulo siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay cadeynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa roolka iyo responsibility-ga qolo kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac ka soo galaysa sida ay tahay inay maxaa ku dhahay sheeg ay uga qayb qaataan policy-ga national level-ka waxay lagu apply gareyn doonaa haddii la yiraahdo dalka Soomaaliya oo dhan iyadoo foundation noqon doonta environmentiga deegaankeena haddii Ilaahay yiraahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna hore oo kala soo tashanay qaybna waa anaga maanta kala tashanayna qaybta dhimanna haddii Ilaahay yiraahdo waanu kala tashan doonaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda biyaha iyo duurjoogta koonfur galbeed agaasimaha wasaaradda oo runtii ah team energetic ama dad dhalinyaro ah oo raba inay maxaa ku dhashay environment wax ka qabtaan sidoo wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen magaalada Baydhabo shirkan quruxda badanna ay haddii Ilaahay yiraahdo wuxuu siin doonaa taageero dhinac kasta oo markaas aan u aragno inaanu kala shaqeyn karno weli waxaanu si gaar ah isugu dayi doonaa baahiyahooda inaan weli marka aan kala qaban karno haddii Ilaahay yiraahdo aanu kala qabano policy-gu waxay aad iyo aad uga hadlaysaa ama ay aad u cadeynaysaa waxyaabaha backbone-ka nooca backbone-ka yani laf-dhabarta u ah dhaqaalaheena Soomaaliya sida beeraha sida xoolaha sida fisheries-ka sida daaqa mining-ka iyo energy-ga waxaan oo dhan waxyaabaha inay kala hadlaayo oo mining-ka energy-ga fisheries-ka livestock agriculture-ka wasaaradda way shaqadooda badanaa tahay laakiin environment-ku waxay ku soo galaysaa waxa weeyaan sidii la rabo looma isticmaali karo waa inaad eegtaa intee baa la isticmaali karaa maxaa la isticmaali karin maxaa ii sheeg deegaanka muhiim u ah something like that marka waxyaabahan oo dhan waxaan u baahannahay inaan mar kasta environmental issue-ga aynu haddii Ilaahay yiraahdo aynu ka fiirino kadib markaan nii soo sheegay oo hadda aan ila hadlaya aan idhahay caqabado badan oo jira daraadood oo dhinaca shuruucda deegaanka Soomaaliya oo aan jirin agaasiga deegaanka Soomaaliya wuxuu go'aansaday inuu raadiyo qof lawyer ah oo sharcigan qori kara markaan raadinay kadib waxaanu shaqaalaysiinay maxamed khadar oo ah qofka maanta inoo daadihin doona haddana nala jooga inuu qoro siyaasadda tan iyo shuruucda la xiriira dhammaan ilaa iyo inta laga geeyo golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbin doono haddii Rabbi idmo documentiska marka hadda waa drafted oo waxaan ka soo baxno fiican maamul goboleedyadana waan hore baan ugu soo tashanay qaybtood sida Puntland maamulka labaad hadda aan la tashanayna waa koonfur galbeed maamulada dhammaanna waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ayagana sidoo kale
inaan gaari doono. ujeedada marka maxay tahay kulankeena maanta aan isugu nimi? ujeedada kulankeena maanta waxa weeyaan state kasta in stakeholderskiisa ama dadka environmentiga daneeya ay qayb weyn ay ka ciyaaraaniin policy makingka ama sharcigan marka aan samayn doono haddii ilaahay yidhaahdo, oo ay member kasta oo yacni ama qodob kasta oo siyaasaddan ka mid ah aad il gaara ku fiirisaan seebay tahay, inlayn maynula tahay, ma fahmi ka dhaan, wax sax ma tahay, bini aadan baa leeyahay waxbaa la qorayaa, khalad baa mararka qaar dhici kara, maxaan ku dhahay ii sheeg waxaas oo dhan. sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin rajeynayaa inaad ka qayb qaadataan, inaad input fiican ku yeelataan, inaad dareentaan inay tahay wax dalkan iyo dadkanba muhiim u ah oo ownership ama lahaansho siyaasaddan hadhowdi markii golaha wasiirada